dadka iyo saameyntooda waa qasab in dadka noloshaada ku hareeraysan ay dhinac u bataan wanaag iyo xumaan marka laga hadlayo balse taas ma aha midda macnaha badan suubinayso waxa macnaha suubinaya ayaa ah saamaynta ay kugu yeeshaan iyo sida ay u beddelaan dadkaasi noloshaada laga yaabe in dadka qaarkii ay ku doodaan in qofna uusan qof kale taasise ma ahan dhabta jirta ee waa mid ku salaysan malo meel loo cuskada aysan jirin waa hubaal in dadka aad mar walba la dhaqanto ama aad wax la wadaagto in badan aad kaga dayato nolol ahaan dhinacyada ay doonto ha noqote waana intaas wax laga hadlayo sidaa darteed qiimaha daran ee ay leeyihiin dadka wanaagsan ee kugu hareeraysan ma ahan waxa aad ka heshid xaggooda ama aad kaga dayato muhiimadda ayaa waxa ay tahay sida wanaagsan ama xun ee noloshaada isku beddesho saameyntooda ay kugu yeeshaan darteed dulqaadka adkaysiga iyo dulqaadku waa macallinkayna bara wax badan oo ka mid ah qiimaha nolosheenna ma ahan oo keliya in adiga oo keliya aad wax ku baranayso ee waa in dadka qaarkii aad tusaale ugu noqon karto dulqaadka iyo adkaysiga noloshu waa mid taxana ah oo la iskaga daydo qofba qof ayaa u ah bidhaan uu isleeyahay gaadh taas oo macnaheedu yahay in kulligeen aynu wadannahay tusaale dad kale ama ay dad kale inoo yihiin tusaalayaal aan doonayno inaan gaadhno haddaba dulqaadka maanta waa faa'iidadaada berrito waxaa hubaal ah in dulqaadka qofka leh uusan marnaba khasaarin dulqaadku waxa uu la mid yahay cashar aad maanta baratay kaasoo faa'iido guud u leh noloshaada oo dhan haddaba samirka iyo dulqaadka in la badsho ayaa muhiim ah cadceedda iyo duufaanta xusuusnow in qof walba uu ku doonayo marka aad ladan tahay caafimaad ahaan balse marka duufaanta dhibaatada kugu dhacdo oo boorku kugu qariyo waa markaas marka uu qof waliba wejiga ka dadanayo araggaaga qofka markaas ku soo aado iskuna daya inuu kaa tiro boorka ama kaa dhaqo waa qofka la doonayo inaad xajisato dadku waa kuwo ay keento dabaysha macaan dhammaantood inta xun iyo inta san balse marka ay duufaantu kacdo waxa la kaco oo duufaantaas dhinac raaco intii xumayd ee adkaysiga lahayn amaba aysan daacad ka ahayn la jirka ay kula jireen haddaba dabaysha kacda sabab ay u kacday ayaa jirta ma ahan in adiga keliya dhibaato kuu tahay boorna ay kugu qarisay waxay kaala kacday kuwo ku dul saarnaa oo aad moodday inay qaali kugu ahaayeen haddaba cadceedda quruxda badan waxay la timaaddaa dad wada qurux badan balse qalbi ahaan aan la aqoon karin halka duufaanta ama dabaysha kacdo ay la kacdo kuwa qalbiga ka foosha xun waxayna rabtaa kuwa qalbiga qurxoon